السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijkeena wuxuu yahay luqad. waa maxay luqadu? intaynaan dhex gelin balaan eegnaan qayaxno ereyga waa maxay luqad. waxaa lagu yidhaahdaa luqad ama language afka Soomaaliga. luqad erey ka yimaada asalkiisa luqadda afka Carabiga. language wuxuu ka yimaadaa afka Ingiriiska. maxaa keenay afaf kala duwan ee dunida sida Ingiriiska, Carabiga, Soomaaliga? af maxaa bedela? maxay kala yihiin af iyo luqad? ma waxaan u tixgelinaa qaab isgaarsiineed oo keliya oo dhalinayo cunuhu uuna ka soo gudbaayay hirarka ama cadadka jabaqda kaasoo ku dhawaaqayo noolaha ama aadmiga. sidaasoo kale waxaan odhan karnaa luqadda waa wax kasta oo sameeya ujeedo micno buuxda leh. waxaa ka mid ah akhrista farta, waana nidaam dhalinaya cadad iyo waxyeelo. laysku fahmo oo kale waxaa kale oo la odhan karaa luqadu waa walaaxda dhalisa dhawaaq, codka, jabaqda, shanqadha, calaamada sanqashadu samaysana micnihiyo garashada la fahmi. halaan ka soo gudubnee horta waa maxay erey? waa maxay ereyga luqad? maxaa loo yaqaanaa? maxay dadku dhahaan? waa maxay adigaan ku weydiiyey. ereyga luqadi wuxuu ahaa asalkiisu uu ka soo jeeday ama uu ka yimid laatiin oo uu ahaa afka Ingiriiska ku yahay tangwa. noo bilaami doonaa taariikhda iyo qoraalka afka Soomaaliga. Soomaaligu wuxuu ka mid yahay luqadaha geeska Afrika. waa ay kuwa ugu hadalka ugu badan yihiin Soomaaliyeed ee ay ku hadlaan ayna ku deegaanka aad u baaxadda weyn ee u dhexeeya gacanta Leejora ee ilaa webiga Tano ee waqooyiga Kenya. markii ugu horreysay ee ay qoraal rasmi ah ku dhaqmaan yeesheen sanadkii 1972. wixii muddadaas ka horreeyay dadku waxay ku wada xidhiidhi jireen luqadaha ajaanib sida Ingiriiska, Carabiga, Talyaaniga. sida looga gudbo luqadaha ajaanibta isugu dayay in ay wax ka qabtaan aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo ajaanib isku jira sanadkii 1960. waxaa la soo saaray guddiga luqadaha 18 nooc loo hirgeliyey oo afka Soomaaliga lagu qori karo 11 farahaas. waxay ahaayeen faro cusub oo ay laatiin aqoon-yahano Soomaaliyeed farta Carabiga, halka 3 ka midana ay ku saleeyeen laatiin. muddadii ka horreysay inta aan la samayn qoraalka rasmiga ah, aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxaa ka dhex taagneyd dood aad u kulul sida ay ku samayn lahaayeen sidriga loo qori lahaa Soomaaliga. Axmed Ibraahim iyo Xaashi Maxamuud Xuseen Sheekh Axmed Qadariya waxay ahaayeen dadkii Soomaaliga qoray. kulley aniga si aan anigu ku dhigtay iyo sida la ii sheegayba 3 nin ayay ahaayeen. fadlan qaybta labaad la soco adigoo raaliya. subscribe-tana ha naga iloobin saaxiib. nagu xidhnow, naga faa'iida.